waa tahay mudanayaal iyo marwooyin abaalmarinta caawa dhinaca gabayada yaad u malaynaysaa in uu qaaday tolow ma waxa aan soo wadaa gabar mase rag dhinta badan Soomaalidu waxa ay yaqaaniin inay gabayadu ragga aad ay ugu luqayaan balse sanadadii dambe gabdhaha ayaa la wareegay oo iyaguna qayb ka ahaa. The nominees for the 2020 Poet of the Year: Mohammed Salah, Ifrah Hussein, Mohammed Warsame, Ifrah Mansour, Abdullahi Hassan Gani, Shuaib Yare. waa tahay gabyaaga sanadka waxa ku guuleysatay gabadha lagu magacaabo Ifrah Hussein oo sanadkii hore gabaygii ugu qiimaha badnaa masxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida kaga luqaysay waxa ay ku nooshahay dalka Canada caawa ayada ayaa heshay abaalmarintii ugu sareysay ee gabyaaga. I wanted to extend a very deep, humble gratitude to the Somali Museum of Minnesota, firstly for everything that they do and for keeping the culture alive for generations to come. And secondly, for awarding me with the Poet of the Year Award 2020. There couldn't have been a better time. And, you know, I sincerely hope that we keep the culture thriving because there couldn't be a better thing and a more beautiful thing. So again, I extend my thank you to the Somali Museum and to all of you. And I hope you all remain beautiful.